فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلهي سبحانه وتعالى آيادا وحوليه هذا شيء أتكو دودان أعلي قرآنك إيو سنة. طبعا مسألة ولا سكو قبسان كرا ولا دودي كرا، لكن وحاجة آداب لو دود، آداب المناظرة، قاب علمييسان على الربا إن علماء مسائشة أي التحليليان أو سبان ديغان. لكن هدي أديكن هودا سوح كوسو دوبتو سوشيال ميديا نينكان وصو دوبو أو نينكان ولياي بنتي سواي كاسو حواي كاذب واي ميش واحكا عامدا ميش كوريريس. هدي ما أنت أديكن نينكان بين لو أدهد waxaa laga yaabaa inuu salaanta kala wareegto oo cugdo uu ku qaado. Imaam Shaafici wuxuu leeyahay jiri ida ikhtalafna mas'ala alasna ukhwa, mas'ala hadan isku khilaafno alasna ukhwa walaaltanimadi inama almu'minuna ikhwa. Culumoy ka jooga caamada korkood yaa lagu murmin. Haddii mas'ala aan rabtaan meel hala fadhiisto, meel hala iskugu imaado, laakiin ogow marka social media waxa soo duubays waxaa ku dhageysanay caamaa ku dhageysanaysa, culmaa ku dhageysanaysa, qof kasta aa ku dhageysanay. wax laga doodayna caamada ma fahansan. waxyaalahan waa la ilaaliyaa. masaa'ishan oo xasaasiyad ah ama oo aan lagu heshiinaynin in macnaha dadka caamada dhexdooda lama keeno. masaajidaha hala fadhiisto, wax la isku soo dhaadhiciyo. laakiin hadday noqoto kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun, ani xisbigaasan matalayaa, adi xisbigaasaa tahay, haddiiba difaaca la iskugu jiro wax lama xallin karo. hadalkay waxaan ku soo xirayaa culimmada Soomaali meel kasta ay joogaan, masaa'isha khilaafiga ah ama dooda oo aan dhammaanaynin yaa culimmada iyo caamada hortooda la keenin.